ku-xigeenka guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland waxaan jeclaa saaka inaad iga warbixisad xeerka aad hor keenteen golaha xeerka caymiska taasoo wax ka bedelay kaabis aad ku soo samaysan ka guddi ahaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. xeerkani golaha wakiilada wuxuu soo gaadhay ajandihii iyuu ku jiraa annaguna horey baan u gudagalnay waxaana weeye waa xeerka caymiska qaranka qobiyo qoraal baan u sameynay kadib markaanu waajibaadkii na saarnaa guddi ahaan inaanu akhrino oo ka bacdina aan u sameyno workshop oo workshopkaasna ay ka qayb galaan daneeyayaasha xeerkan ama civil servant ha ahaadeen ama xukuumadda ka tirsanaadeen iyo dowladda ama ha ahaadeen hay'adaha madaxa bannaan dhammaan waan wada yeedhnay bishii September 16-keedii ayaanu maasoor ku qabanay ayaguna waxay soo jeediyeen iyo waxa guddigu uu soo jeediyey annagoo isku dhafnay baan kaabista iyo wax ka bedelka qoraalka qabiyo qoraalka xeerka hay'adda caymiska aanu sameynay ee xukuumaddu ay noo soo gudbisay waxaana waana xeer muhiima oo muhiimadiisu ay tahay inay kobciso horumariso dhaqaalaha dalka miisaaniyadda wuxuu ahaa waxqabadka oo dadweynaha loo qabanayo marka dal iyo dadba waa u dan xeerkanna waa xeer caalami ah sideedaba caymisku waa laga maarmaan wax kasta oo imika haddaad takhtar tagto iyo haddaad dhoofayso caymis baa lagu weydiinaya haddaad meel shaqo u doonanayso marka shirkadahan caymiska sidaa darteed baan annaguna xeerkan aanu u soo jeedinay qabiyo qoraalka xeerkan soo jeedinteedu waxay saamaysay 16 qodob isagana xeer ahaanna wuxuu ka kooban yahay 29 qodob annaga maanta bay ku eg tahay hawshayadii oo ah soo jeedinta muxuu ahaa qabiyo qoraalka xeerkan ka soo baxay arrimahan workshopkii iyo guddiga falanqayntiisa hadda waxaa xilku saaran yahay golaha wakiilada oonu ka codsanay inay si degdeg ah u ansixiyaan kana doodaan waxaan bedel iyo kaabis iyaguna ku sameeyaan qodobadii anagu aan soo bedelay ama nagu raacaanba wixii ama iyagu wax ka bedel sameeyaan wixii ka dambeeya xeerkaas insha Allah taala waa uu soo baxaya hadduu soo baxana dee sidii dastuurku uu sheegayo markaanu ansixino oo madaxweynaha u tagaysa madaxweynaha uu saxeexaya uu dhaqangalkiisana uu sheegaya markaas uu dhaqangal noqonaya oo billahi tawfiiq intaan ka bixin maxaa ka mid ahaa qodobadan tala ahaan kusoo jeedinaysan guddi ahaan waxa weeye qodobada aan soo jeedinayno qodobo aanu ka saarnana waa jiraan oo dee soo noqonaya misalan sida ujeedooyinka xeerka iyo qodobka hay'adda ka sheekeynaya labadaas waxa weeye waan isu geynay qodobo kale oo iyaduna xeerka مثلا guddiga mustambeedka ama waxaan la yiraahdo muxuu ahaa hogaaminta oo wasiirada ah laba wasiiro ayaanu ku darnay ama laba wasiir oo laba wasaaradood u madaxa qodobkaas magacaabistana maadaama ay magacaaban yihiin waxaanu nidhi looma baahna madaxweynuhu inuu ansixiyo waayo xilkooday ku joogaan xilkoodana way ku tegayaan intaasoo labadaa qodob oo muhiimka ah ayaanu annagu moogtahay ku biirinay meeshii xeerkan kaabista iyo wax ka bedelka.